السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة Soomaaliya ummadda Islaamka waa salaameyna kasta joogtaan. Waxaan maqlayaa maalmahan dadkii reer Soomaaliya oo qaylinaya oo cabaadaya oo le macni madaxweynaha Mareykanka meel ka dhacay Soomaaliya gabadh Ilhaan la yiraahdo u jawaabay muxuu sheegay madaxweynuhu wixii iray buu sheegay wixii la wada og yahay buu sheegay wadan burburay inay ka timi ayuu sheegay waddankeedii inay xallinaysateedii ay xallisaa buu sheegay wuxuu sheegay macnihii inay Soomaaliya tahay meel 40 sano dagaal ka jiray oo dadka u dhashay ay xallin kari waayeen waxaan saxayn buu sheegay meelana badgaliya ka jirin meel macaan ku dhaay musuqmaasuqa adduunyada mar walba ugu sareysa wixii jiray buu sheegay laakiin Soomaalida runta dhiftay Soomaalida runta qofka bini'aadamkii wuxuu xallin karaa markuu runta fahmo macni uu runta ogaado runta uu qaato waxa ka qaldan uu qirto markaas ayuu xallin karaa laakiin inta ka horeysa wuxuu ma xallin karo reer Soomaaliyana weligood wuxuu ma xallin karaa sababtu tahay khaladkooda ma arkaan Somaliland meel la yiraahdo ayuun baa u hilaacaysa siyaasadooda iyo dhanba la dagaalanka Somaliland bay sugayeen Somaliland waxaad moodaa xagga Allah laga wataa marka waxba ma kama joojin karaan waxba ma qaban karaan laakiin 40 sanadood ay tacabka ay galinayaan Somaliland la dagaalankeeda iyo waxay ahayd inay galiyaan tooda qof siyaasi sheeganayo Soomaaliya ka yimina dunida inuu yiraahdo waxbaan qaban karaa iyo waxbaan samayn karaa asagay ceeb ku tahay marka gabadhaas Ilhaan la yiraahdo iyo inta la midka ah Soomaalida reer Soomaaliyaba dadtoodii bay xallin laayeen yani waxay midayn kar laayeen Puntland iyo maxaan ku dhahay Muqdisho sida marka Mareykan looga hadli karaa kasto Mareykanku deeyahay wadan dad ajnabi dhiseeno macni asaga qudhiisuba uu daayimi laakiin waa loo soo kala horeeyay isaguba waa Yurubaan iyo naagtiisu waa Yurubaan waxaadoo dhammi waa Yurubaan waliba naagtiisu waa ajnabi hasa ahaatee ayagu dalalkii ay ka yimaadeen ayay waxay yihiin ka muuqataa Ilhaan iyo inta la midana dalkii ay ka yimaadeen ayay waxay yihiin ka muuqataa marka dadkani runtay qaadan kari laayihiin runta inay liqaan bay ahayd waxba inay gabadhan buunbuuniyaan ma taraysa gabnakad kaba ka tolanayso kabihiisa la eeg halkay ka timi baa la ogyahay ninka ay macni cad jooga Mareykanka iyo gabadha ajnabiga ayaguba soo galay Mareykanka waxa lagu qiyaasay wadamadii ay ka yimaadeen sida yihiin Ilhaan iyo inta la midana waxa lagu qiyaasay meeshii ay ka yimaadeen meel fashilantay bay ka yimaadeen dal si walba u fashilmay dhaqaale ahaan u fashilmay dal ahaan u fashilmay sistaba si walba u fashilmay ayay ka yimaadeen taasoo baana lagu qiyaasay meel kasto ay dunida joogaan marka waxaan leeyahay dadka iyo xagashada ka daaya oo haddaad wax noqon karaysaan wax noqda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.